السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سود هذا ومركله برنامج كله كيستا تي في جمعة وناكسن مال كستو واد جوكتان يسي كستو واد إنه داوان إيسان انتبه وحنا بمانتا إن شاء الله تعالى إن أنك هذا الله أرين كسو كوردي حاجة immigration كا أو كوس أبسن دتك green card كا أو apply green أي حاسكا أما أنا هذا أريد يا مسيجا haddii aad application buuxsanaysay oo green card aad rabtay inaad ugu apply garayso qof aad rabto inaad ku keento dalka Mareykanka guur ahaan inaad ku keento aad u baahan tahay waxa soo kordhay warkaas ayaan rabaa inaan idin la wadaago sida aad ogtihiin ba arrimaha immigrationka bariyahan waa adag yihiin xaaladuna waa meel adag bay maraysaa dadka dhan waa lagu adkeynayaa applicationadii waa iska adkaadeen keenistii waa iska adkaatay inkastoo oo weli sidii la filayay aysan u adkaanin haddana waxyaabo badan baa socda oo iska soo daba dhacayo oo aan dadka applicationka buuxsanayo ama qaxootiga ahaadaan ama asylum ha ahaadaan oo darbi kabood ha ahaadaane aan favor u ahayn waxtar badan aan u ahayn aan ku bilaabo dadka hadda waxay soo saareen shalay amar cusub Donald Trump iyo maamulkiisa iyo qolyaha immigrationka qaabilsan intaba haddii aad tahay US citizen oo passport haysato iyo haddii aad tahay green card haysataba oo aad rabtid inaad qof u apply garaysid xaas ahaan aad ku keento ama oday ha ahaado ama maama ha ahaatee aad rabto inaad qof ku keento guur ahaan inaad ku keento waxaa loo apply garayaa sidaad ogtihiinba green card ayaa loo apply garayaa green cardkaas markaa qofka aad ku keenayso ama dalka dibadiisa ha joogo ama dalka Mareykanka already ha kula joogo oo intaba isku guursada sharciyada ayaa la adkeeyay sharciga koowaad oo hadda la adkeeyay waxa waaye processing time kii waa la dheereeyay xilliga ay qaadan jirtay qofka markuu apply gareeyo marka uu qofka u apply gareeyo guurka oo uu rabo inuu green card ku keeno waxaa la dheereeyay processing time-ka xilliga ay qaadanayso extra ayaa laga dhigay xilliga macnaha marka apply garayso in faraha lagu soo diro in approval lagu siiyo in maaragtay applicationkaaga laga shaqeeyo delays waa soo daahid waa la daahinayaa oo arrinkan hadda waxay stretch gareeyeen xilligii applicationka uu qaadan jiray qofka markii uu guur ku apply gareeyo waa la dheereeyay oo meesha hadda warqadda ay ku soo dirayaan oo jawaabta ah meesha ay markii ku soo diraan xilligii ay expect gareyn jireen in ay qaadato ama ay rajeynayeen inay ku soo dhameystiraan applicationkaaga waxba iska bedelay oo waa la dheereeyay so processing time waxaad ku tala gashaa in xilligii uu dheeraaday waxa kale oo ay shalay soo saareen in ay baaritaano dheeraad ah ku sameyn doonaan dadka ay shakiga ka qabaan not only that taas kaliya ma aha in ay rabaan in cadeymo dheeraada ay soo rogeen si loo hubiyo in aad qofka aad guurka ku keenaysid ama aad marriage-ka ugu apply garanaysid inaad isqabtaan iyo in kale scrutiny of marriage waa la yidhi waxaa la rabaa in la ogaado haddii qofka marka Mareykanka isla joogtaan oo kale maxaa cadeymo ah oo laga rabaa baa la yidhi waxaa ka mid ah cadeymaha laga rabo oo lagu weydiin karo in adiga iyo qofka aad u xareynaysid applicationka oo aad guurka ku claim garanaysid haddii dalkan aad wada joogtaan oo kale weeye waxaa lagu weydiin karaa in aad wada leedihiin bangi aad ku wada qoran tihiin joint bank account inaad wada leedihiin oo aad adiga iyo qofkaas hal bangi ku wada qoran tihiin uu jiro sidii dad isqaba oo kale dee xaas iyo odaygeeda say iyo ooridiisa oo kale ama oori iyo saygeeda oo kale inaad hal bangi wada leedihiin oo kale sidoo kale in aad wada degan tihiin oo guriga aad degan tihiin apartmentiga liiska iyo warqadihiisa aad ku wada qoran tihiin oo kale baa caddeyn noqon karta waxaa caddeyn noqon karta baa la yidhi social interactions sida aad u wada xiriirtaan whatsappyadiina messajyada aad wadaagtaan iyo communication historyga dee wixii idinka dhexeeyey oo dee xaas iyo odaygeeda ama oday iyo xaaskiisa ka dhexeyn lahaa in la helo so waxaan dhan waxa waaye waxay baaritaan ku samaynayaan in la caddeeyo in aadan guur qaldan xaraysanin oo aadan si qaldan isugu dayin inaad qof u keento oo aad iska ilaaliso
waxaa kale oo caddayn lagaaga baahan doonaa baa la yidhi affidavit oo kale request for evidence hadda waa la caddeeyey affidavit-ka waa warqad caddaynaysa in aad qofkan isqabtaan waxaana kuu soo qori kara oo aad ka heli kartaa war waa soo dhawaada cabdi iidow inaad joogtaan waa idinka warqabaayo dadka aan joogin oo wax loo apply garaynaya laga hadlaya insha allahu tacaala marka caddaymaha request for evidence caddaymaha laga rabo oo kale baaritaan hadda wuu cad yahay marka hore ma kala caddaan jirin oo sheekadu intan way ka fududeed xilligii uu joogay Biden xilligii Biden uu joogay sheekadu inta waa ka fududeed laakiin haddeer caddaymaha warka waa la caddeeyey waxaa lagu dhahay affidavit warqad caddayna oo aad ka keentay ama saaxiibada ama aad ka keentay friendskaaga ama familygaaga oo caddaynayo in aad isqabtaan aan ku daro maya waa lasii kordhiyey baaladii shaqada waa lasii adkeeyey cigaalow sheekada waa lasii adkeeyey guurka waxaa la rabaa in caddeymo badan la helo adiga waxaa loo samaynayaa qiilkii waxa laisugu diidi lahaa waxaa kale oo lasoo kordhiyey formska waa la bedelay formka I-485 ama I-130 oo aad buuxsan jirtay waxaa laga dhigay updated mid cusub oo soo baxay baa jira January 20keedii sanadkan kaas baa waxaa la yiri waa in applicationka dambe anybody oo hadda wixii ka dambeeya buuxsanayo inuu applicationka soo isticmaala haddaad outdated applications haddaad soo isticmaasho ama oo checklist waxay keeni kartaa in lagu soo diido oo lasoo reject gareeyo applicationkaagii haddii aad isticmaashay applicationadii hore so applicationkan cusub maxaa ku qoran oo extra ah waxaa ku qoran qayb yar oo waxay ku dareen oo paragraph yar oo sheegayo in aad caddaynayso kuna dhaaranayso in applicationkan aad buuxinayso si saxa aad u buuxinayso oo qofkii waxaa gartay maasi applicationka aad buuxinayso in uu sax yahay oo qofkana qof si saxa ah isu qabtaan uu yahay oo uusan ahayn fraud bay ku soo dareen so kaasna way ku soo dareen lacagtii lagu buuxinayay waa la kordhiyey updated formka waa la bedelay higher feesna waa lagu soo daray xoogaa lacagtina waa la kordhiyey waxaa kale oo hadda iyadana soo kordhay dadka green cardka haysta oo apply garaysta travel permitka ama travel document wax loo yaqaano waqtiga ayaa lagu sii dheereeyey qofka hadda waxaa laga dhigay processingkiisa 8 ilaa 14 bilood bay marka sanad iyo 2 bilood ilaa 8 bilood ilaa sanad iyo 2 bilood bay hadda qaadanaysaa baa la yiri qofkana kama tegi karo dalka ilaa uu helo parolekaas oo uu ku soo geli karo ama warqadaas hadhow uu ku soo noqon karo ilaa adduunka hadda waa adkaaday xaaladuna waa iska adag tahay waxaa kale oo haddeer dib ay u soo celiyeen beri hore way jiri jirtay dhaxdan group 5 muna waa ka warrami doonaa insha allah dhaxdan way jiri jirtay markii hore laakiin haddeer waa la soo celiyey dhaxdan markii imaaday Biden waa la joojiyey ama dad yar baaba lagu samayn jiray oo la select gareeyay oo laga shakiyey waxaa soo korodhay interviewgii qofka lala yeelanayay ama xaaska ama odayga iyo xaaskiisa whatever ay tahayba ama oorida iyo saygeeda hadba kay tahayba waxaa la soo celiyay interviewgii dadka laga qaadi jiray oo haddeer fewer interview waivers baa la yiri interviewgii dadkii marka hore waxay ahaan jirtay waxa kugu filayd oo kale certificate-ka guurka ah bay ku qanci jireen qolyahan USCIS-ta laakiin haddeer waxaa la soo rogay oo dib loo soo celiyey in interview lagula yeesho oo qofka keenayo interview lala yeesho qofka la keenayo interview in lala yeesho marka taasna waxay keenaysaa baa la yiri taasna waxa ay keenaysaa in waqtigu uu dheeraado sababtoo ah in balan hesho lagaga qaado waraysi oo qofka immigration officerka waraysi ka qaado baaba waxay noqonaysaa xilli dheer in ay qaadato bay noqonaysaa so si aad u heshid appointmentigaas baa bilo kugu qaadan karta arrinkaa waagi dhaweyto intuu Biden joogay waa la iska joojiyey Biden xilliguu imaaday interviewga waa la joojiyey qof iyo dhif iyo naadir ah
oo laga shakiyey bes ayaa maaragtay interview laga qaadi jiray. So joint bank statements, bankiga ku wada qorantihiin oo kale, lease haddaad document iyo guri aa wada degan tihiin, sawiro photographs over time baa la yidhi, communication records, text messages, emails, call logs, waxyaabaha dad isqaba ay wadaagaan oo kale, evidenceyadan ayaa la ururinayaa. Affidavits from friends and family, in cadeymo laga helo ama warqada affidavit ah oo waalid qof uu ku soo qoray familkaaga ah oo cadeyn kara inuu isqabtaan iyo asxaabtaada ay ku soo qortay. So haddeer waxaa la sii adkeeyey. I think Somalis are going to face limited options when it comes to US immigration programs. Nancy waa kacsantahay wallahi masha Allah. And there shouldn't be a huge issue as long as you stay legal. So maaha waxaaga si sax ay yihiin as long as things is staying perfectly right. So the best thing you can do, waxaad samayn kartaa baa la yidhi, get your ducks in a row. Waxaaga dhan diyaarso. Use the new application forms. Lacagta oo fiiga hadda waa la kordhiyey, the right amount of money soo dir. All the supporting documents and evidence-iga soo raaci. Si baa la yidhi, waxaa laga yaabaa markaas in interviewga hataa lagaa waive gareeyo, laakiin haddii waxaaga qulub ay ku jiraan waxyaaba badan baa dhici kara. Waxaa dhici karta A in lagugu soo celiyo applicationka, B in la reject gareeyo applicationkaagi oo dib inaad usoo buuxiso ay noqoto, in interview lagu ballamiyo xilligana kugu dheeraado. Waxyaabo badan baa soo kordhay. Hadda the bar is higher. Sheekada hadda sidii hore ma aha, way ka sarreysaa meeshii hore oo ay joogtay. Arrinkan waa lasii adkeeyey. Dadka xareystay travel permit-kana, it's taken almost 14 months, 8 to 14 months uu qaadanaya, 8 bilood ilaa 14 bilood inaa hesho. Qof kasta oo green card haystana waxay ku boorinayaan in aadan dalka ka bixin adiga oo aan helin advanced parole to return to the country. Waddanka inaad kusoo noqoto adoo aan qaadanin warqadaas has ku bixin bay yidhaahdeen. So arrinkan ayaa shalay lasoo kordhiyey. Foomkaa cusub inaad buuxiso, inaad fiiga lacagta extrada bixiso, evidencegan iyo waxan iyo warqadahaaga iyo applicationkaagana inay sax yihiin in order to avoid further delays. Sheekadan saas oo aad ka adag tahay si aad isaga ilaaliso marka applicationkaaga in uu dib u dhaco. Inta ayaan rabay maanta inaan idinka dabageeyo. Waa idin salaamahayaa intii aan ku kulmayno program ka duwan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Peace. Kasongo.